ولم أسحب كبيرا أنت بي وأمي بعفسك جديرا تجعلني إنسانا عزيزا مستنيرا عدت مع أصحابي من عدلتي مسرورا تحيتي إليك مستبشرا فخورا أحب الناس لأمي ومن بالروح تفديني فكمل ليلة القمر على ما جئت تقدرني تخاف علي من مرضي ومن ألم فتأتيني ومن ألم ومن مرضي أناديها فتأتيني بروح سوف أفديها كما بالروح تفديني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أكون ساسنا أنا قرنين أرضي باورستو وحبي يشيئين أمر بهالك أنا تعليم تيسريسيو صباح لوصو دريرة وحن مركي أنا وقاضي أمر كان مقليبا صباح وصوك وعن وحن سوجر ماذبا مركان عكت صولي جاي أرضي وذي إفسي أدب لوقر باشا حسوا لو بحشا معلمين أقولنا هي معلمين أقولنا هي تيسريسيو 10 كالي جايين شرح لو فهم مامل وقام ونتسن من علم لقيه لاي وحن حقيقة صدي أنور إن قبل لسه ما جرين وحال يسكر عقول هو ذا أردا أنور بعده صون دكتور دروستي مركان كسر بكتير هذا دلك أنا وقف قبته أنور بالوجي ماذا أقول تيسر يسيها قردام عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. وعرتوا عنكم فرح سنة ما أنت سنة جوردي وتضباط وكسر ورقة أساس كين بدل لو تاجي سكول كأنا أنور سكول dadkii oo maalintii la asaasay 2013 dadkii waalidiintii waxaan ka mid ahay number 1 oo loogu yeeray iskoolka oo maamulkii dhalinyaradii macallimiintii ardaydii agoonta la raadiyay oo xaafadda degmada Hodan iyo area dadka ay ku sugan yihiin waa juhdi badan ayaan u soo sameynay macallin Xasan iyo Saraar ayaan isla soconay sidii aan u soo raadinayna arday oo aan waxba iska bixin karin dad walaalo muslimiin ah ay u soo saacideen si ay ugu taakuleen inay wax bartaan maadaama ay dadkina agoon yihiin oo wax saacido iskuul wax ka bixiyo in haysan sidaas darteed ayaa anigana juhdigaas ula sameeyay dadka badana hadda ardayda oo hadda iskuulka dhiganayso ugu yaraan arday ilaa 40-30 gaaray anigu waa la soo qoray macallin Saraar iyo Xasan dadkii xaafadda la galo agoonta raadiyana kamid aheen oo ku saacidnay waalidkii waxaan ahayn mar walba la shaqeynay maamulka iyo macallimiinta waana iskoolka kaliya aan ku amaani karo macallimiinta ardayga hadduu maqan yahay iyo haddii uu soo daahaba ardayga waalidkii inuu telefoon u soo diri dhahayo ardaygaada maanta maxaa ku dhacay ardayga muxuu imaan waayay hebel waa maqnay maanta waa imaan waayay aad ayaan ugu faraxsanahay horta ardayda macallimiinta Al-Anwar School isku xirka waalidiinta iyo agoonta iyo ardayda iyo isku xiraan waalidiinta iyo iskuulka iyo waxbarashadooda iyo mar walba ay diyaar u yihiin inay wax baraan maadaama sanadkii ugu horeeyay dugsiyeedkii ugu horeeyay dugsiga oo 12aad ee galaaska form 4 loo yaqaan oo sanadkan oo qalin jabinaya ka baxayaan taas ayaa aad iyo aad waxaan ugu mahadinayaa maamulkii macallimiinta intaas juhdiga iyo u soo maray wayna u gudbi doonaan imtixaankoodana waxaan jeclahay inay Al-Anwarna sanadkan noqdaan dugsigii sare form 4ka ardayda oo wasaaradda waxbarashada ka tilmaaman oo ka soo baxa ardayda ugu sareysa 10ka ugu sareeya inay ka soo gali doonaan insha Allah aan jeclahay dadaalkiina ku xiran tahay macallimiintiina maamulkiina la shaqeeyo ninka galaaska 12aad dhiganayo soo jaamacadda dhiganayo wax ma dhaamo qof walba ardayda galaaska 12aad dhiganayo waxaan u sheegayaa waalidkii aan kamid ahay kaan dhalay iyo kan kale waa isku mid waxaan jeclahay in lagu dadaalo la iska daayo moobiladan barnaamijyada aan ku jirtaan iyo gamekan sanadkii ugu dambeeyay waa haddaad ka baxdid aad ku baasid jaamacada u socotaa qof mustaqbal loo raadinayo taa mustaqbalkiisa loo sameeyo waxaan idin sheegayaa inaad dadaalka sameysaan musalsaladan filmaanta hindiga iska deysaan aad gamekan iyo mobilkan iyo iska joojisaan mobilka waxba laga faa'iidaa internetyada waxa laga faa'iidaa waxbarasho duruusna waxbarasho jirto hormuuda sameysay adaa youtube-yada ka gali kara iska daay waxaan aad barnaamijyada ku haysaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم waxaan ku bilaabayaa magacayga Caali Cali Katiimbe ma sha Allah Anwar School waxa ay dhigtaan laba gabar sanadkii toddobaad ma sha Allah macallimiin fiican maamul fiican waxbarasho wanaagsan si fiican macna ilmihiga aan wax aaga dareemayaa ma assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي سبحانه وتعالى intaan arday intaan macallimiin intaan waalidiin isku keenay armahadaas u sugnaatay alxamdulilaahi rabbil caalamiin awar maxay yani ciyaal bay dhigto ciyaalkaasna 3 sano miyam 3 sano iyo bilooyin waay meelahaas ay ku sugan yihiin alxamdulilaahi rabbil caalamiin macallimiin fiican iyo maamul wanaagsan ayaan ku ogahay marka ilaahay mahadaan u sugnaatay إلهي مهد أسقناتي مركا أور وحن كو رجينا معلمين في عن إيو أرد معمول في عن إنه ليه هاي مركا كوما سيدراناني الحمد لله رب العالمين أنت ساك الله يعلمون. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد أما بعد قدوميها هيدا أنور دكتور حسن حسين روبلة معلن كسر سكولك أنور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. marka ugu horeysa waxaan salaamayaa madrasada maamulkeeda Ustaad Xasan Cali Ustaad Seeraan macallimiinta dhammaan shakhsi sida Ustaad Xuseen shakhsi u salaamaya waayo xafladan suuragal ma noqoteen waxbarashadana lagama gaari lahayn maanta waxyaabaha lagu naaloonayo oo ah guusha weyn ee xafladda sanad guurada lixaad ee Anwar Muslim United School oo ah sanadkii ugu horeysay oo aan helayno madrasadeena arday form 4 oo ka soo baxda oo aan u diyaarinay jaamacad markaas salaanta macallimiinta ugu horeysiinaya waxaan ku xijinayaa ardaydana waxaan leeyahay dadaala waxaan ku dardaarmaa inaad dadaashaan waxaan ku xijinayaa salaanta waalidiinta oo ayagana aan looga maarmin ardaydooda waxbaa loo barayaa inay macallimiinta ku gacan siiyaan waxbarashada caruurtooda inay ku gacan siiyaan akhlaaqdooda inay ku gacan siiyaan kuwa gaar ahaan oo fonfoorka sanadkan maraya waalidiintooda waxaan ka codsanayaa inay bilahan yar bishan dhiman labadan bilood oo dhiman inay gacan la siiyo oo waxyaabihii ay u baahan yihiin oo dhan in la siiyo waqtina la siiyo waxbarasho waxay u baahdaan macallimiintana sidoo kale waxaan ka codsanayaa inay la garab galo ardaydaas sanadkan waa astaanta ay yeelan doonto madrasada Anwar Muslim United School waxaan codsanayaa in qof kasta uu gacan siiyo ardaydaas sanadkan ka baxaysa waxaan kaloo ugu baaqayaa ugu bishaareynaa in mar dhoweyd shalay oo keliya aan la kulmay madrasa jaamacad oo ah jaamacadaha badda oo ku taal Axsaan magaalada geeskeeda ku taal safaaradda Turkiga waxay noo ballan qaadeen sanadkan inay siin doonaan arday waxbarasho marka taasna waa idinku bishaareynaa waxaan leeyahay dadaala jaamacad diyaareed intaa waa idinka bixin doonaa insha Allah salaam alaykum tan kale waxaan kaloo salaamayaa maamulka guud ee madrasada Tawakkal oo aan leenahay hay'adeen aan leenahay dadaalka badan ay u galeen anaga sidoo kale qof kasta oo meesha fadhiyo waa salaamina kaliya waxaan rabaa inaan ku soo koobo maanta xafladan waa xaflad qiimo badan oo aan dhamaanteen ku faraxsanahay dhamaanna waxaan isku dardaarmaynaa dadaal iyo ikhlaasnimo qof kasta amaano waa ardaydan amaanay nagu tahay macallimiinta laftigooda waxaan kula dardaarmayaa amaanay nagu tahay amaanadaas in la xafido oo wax qaldan aan maskaxdooda lagu qorin oo wax fiican oo mustaqbal leh loo sheego ardayda taasna waxay noo keenaysaa hadhow inaan helno arday toosan oo lagu faani karo sidoo kale macallimiin waalidiintana waxaan ka codsanayaa inay ku gacan siiyaan macallimiinta sidii ardaydaas akhlaaqdooda loo toosin lahaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقت الدير أيام ماشى عن منطقة عن جوجني وكم هتسنتين تذكر سيد كارك أوصل دياري أرضنا كهران محمد حسن علي يسيرار معلمين تين جودي وبدأ يدقلي يوالدين تين لما بوي السلام هنا وحيدين بلنقالنا إن إذن قرب تاجنان دون إلا جامعتك بحضان وإلا أن أنت نولها قرب قلتون إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته markii xarunta midnimada loo taagay ayaynu ku wada jirnaa waana qaybihii ugu dambeeyay iminka waxaan jeclahay in aan mikrofoonka ku soo dhaweeyo maamulka guud ee iskuulka Dr. Xasan Cali Axmed ku soo dhaweeyo بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وبعد runtii waxaa farxad weyn inoo ah maanta inaan halkaan aan taaganahay ay tahay bartii uu ka bilowday iskuulka Anwar run ahaantii waxaan jeclahay inaan dib idin xasuusiyo taariikhda iskuulku ku soo bilowday sababtoo ah waxaa xaqiiqo ah maanta ardayda fadhiso iyo maalinkii la furay ardayda fadhiday inay yihiin farqi weyn inuu u dhaxeeyo sababtoo ah konton cunug ayaa noola keenay oo agoona sida Sharmaako uu ka dhawaajiyay xaafadaha laga keenay waxaa si qaas xasuus iigu ah maanta arday kamid ardaydaas oo maanta ka baxaysa galaaska form 4 oo 5 arday ah ayaan fasalkan geliyay shanaadaan kaga bilaabay maanta waxay u diyaar u yihiin inay galaan imtixaanka form 4 ka waxaan idin leeyahay hambalyo run ahaantii taas waxay nagu dhiirigelinaysaa marka in aan aragno wixii aan soo saarnay miraheedo soo baxayo runtii manani jibinays ee farxad weyn ay noo tahay runtiina waxaan idin leeyahay dadaala dhamaantiina ardada dadka baxaya iyo dadka joogaba waxay muhiimadu tahay in halkaan ay noqoto meel waxbarasho oo lagu hormaro lagu barwaaqaysto qof walba imaanayaan mustaqbalkiisa uu ka dhismo run ahaantii mar labaad iyo mar saddexaad ma jecel inaan khudbada sii dheeray sababtoo ah waqtigu aad noo kulaalaga awgiis waxaa xusuus mudan inaan aan dhahno ilaahay subxaanahu wa ta'ala kitaabkiisa wuxuu ku sheegay ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد sababtoo ah dadkii barnaamijka soo askumay soo agaasimay runtii waxay naga mudan yihiin inaan xusno maan inaan maanta aan iska ilowno oo aan dhahno saasay noqoto iskuulka Anwar 7 sano jirsaday waxay naga mudan yihiin inaan xusno sababtoo ah dadaal iyo juhdi iyo dhaqaale iyo waqti inta wayna geliyeen waxa huwaale caruurtooda waqti ay u baahanayeen inay anagana geliyeen si ay waqtigooda nooga faa'iideeyaan runtii waxaan halkaan salaan ugu diraynaa dhammaan maamulka Ansaar ay ugu horeeyo Sheekh Cabdiraxmaan iyo Maama Xaawa waxaan leenahay jazaakumullahu khayral jazaa wa amaasantiin Ansaar International barnaamijka ay u qabateen ardada masaakiinta ee agoonta ee ku dhaqan magaalada Muqdisho gaar ahaan iskuulka Anwar iyo dhammaan iskuulada ay barnaamijyada gacanta aad ku haysaan ha noqoto qayb caafimaad ha noqoto qayb taxfiid quraan ama ha noqoto dugsi ama iskuul wax lagu barto runtii waxaan aad ugu faraxsanahay mar saddexaad ay idin leeyahay halka aad taaganahay sabirka boorka ku dhagan runtii waxaa ku jiro arday maalinkii la keenay iskuulka aad u yaryaraa haatan horteena fadhiyaan waxaa u muddo inay anagana dheer yihiin sababtoo ah taas waxay cadeynaysaa inta waqti ay soo qaateen juhdigii iyo dadaalkii iyo dhaqaalihii la gilay inay ka soo baxday runtii waxaa farxad weyn noo ah marka inaa barnaamijkan uu noo taabagalo horumarna aan ka gaarno aad u mahadsantiin hal dardaan ayaa jiro oo mar walba aan ku soo celceliyo macallimiintu igu horeysay dhanna way sheegeen gudoomiyaha Tawakkal Ustaad Baashoon uu hadlay waxa anagana taawana oo beri nagu soo noqonaya waxay tahay wadada maanta aan furno form 4keena maanta wadada noo furo ayaa beri qof walba nagu la macaamilaya iskuul kasta ama hay'ad kasta ama jaamacad kasta ardada maanta noo baxayso wadada ay noo furaan ay koox kasta noo soo maraysaa maanta hadii ay form 4keena ay dadka na horgeeyaan inaan kaalinta goowaad aan nahay jaamacad kasta waxay nagu soo dhiiranaysaa inay arday naga soo doontaan marka ardada form 4ka waxaan kula talinayaa ama kula dardaarmayaa in ay dadaal fiican sameeyaan waan ogahay xogta hoos waan haynaa dadka dadaal waa isnaqaanaa waan ognahay qofkii dadaala ilaaha awaal marinaya mas'uuliyada ku saaran waxa huwaanti ah ardaydan iskuulka fadhiso hadii maanta adiga aad mustaqbalkaaga toosisid ay kan madaxda ay wax ku helayaan laakiin hadii maanta aad barnaamijkan aad beer dareyso waxa huwaanti ah in arday dambe oo Anwar ka socdo in aan tixgelin la siinin marka waxaan idinka codsanayaa sida ardayda idinka dambeeyso ay tixgelin ugu helaan jaamacadka iyo hay'adaha kale waa in adinka aad noqotaan kaalin koowaad anaga dhan ayaa matashaan macallimiinta dhan matashaan maamulka aad matashaan Anwar adinka madaxiina wata hadii maanta aad na xumaysaan dad xunaan nahay sida nagu sheegayaan noqonaynaa hadii aad na wanaajisaan sida nagu sheegay ma si ka fiican noqonaa dad fiican noqonayna marka waxaan idinku talinayaa idinku dardaarmayaa ayadoo ilaahay laga cabsanayo wattaqullaha wa yu'allimukumullah aydas ma harayso marka hala dadaalo waa ma santiin mustaqbalkiisa baxayaatiin laga yaabo annaga in xoogaa waqti uu nagu soo galay dadkina bedel inaatiin dadaalkeeda la imaada hogaamiya laba noqda إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى برنامج كين هايدن فضايو مروا إن خطبة أن سيد دايو دمان مرت شرفك والدين تا أرديدا
dhammaan ardayda ururka aasaas anwar dhammaan macallimiinta waan salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.